السلام عليكم saaxiibayaal kusoo dhawaada taxanaha Robin Hood iyo qaybtiisa labaad ka hor inta aanan bilaabin fadlan haddaadan hore u soo daawanin qaybta koobaad raac linkiga hoose ee yaala description-ka xalqada koowaadna waxay noogu dhamaatay Rob aabihiisa oo la daldalay haddaba taxanaha Robin Hood xalqadiisa labaad waxay ku bilaabanaysaa Rob markan wuxuu dul fadhiyaa meydka aabihiis isagoo aan ilmada cishan karin isla markaasina waxa uu imaaday adeerkiisa Gamewell iyo wiilka uu dhalay ee Will waxayna rabaan in ay ka soo wadaan goobta inkastoo Rob uu dareemayo murugo iyo jahwareer haddaba intaas kadib waxay keeneen guriga isla markaasina waxaan arkaynaa Matilda oo ah Gamewell xaaskiisa waxayna ku wargelinaysaa in Rob hooyadiis xalay oo dhan aysan hurdin si daran ay u xanuunsato Robna markuu intaas maqlo wuxuu u cararay hooyadiis saacado kadibna waxaan arkaynaa Gamewell oo soo jeedinaya Rob in uu aado magaalada London halkaasna ay tahay meel ammaan ah eedadiis Matildana waxay dhahday way wanaagsan tahay in magaalo kale uu aado lagana yaabo inuu iloobo xasuusaha aabihiisa laakiin Rob hooyadiisa way diiday in wiilkeeda uu ka dheeraado dhanka kalena Rob iyo Will waxay wada joogaan banaanka in adeerkiisa Willna wuxuu markaan isku dayayaa in uu mashquuliyo wuxuuna leeyahay aniga ah liifyaanka ugu fiican Nottingham oo dhan isku day uu sameeyayna wuu la gafay laakiin markan waxaa soo istaagay liifyaanka saxda ah kaliya laba ilbiriqsi ayaynu ku qaadatay in uu toogto dhaxbartanka dhanka kalena Huntington wuxuu soo gaaray qasriga boqortooyada Normaanka waana subax uga duwan subaxyada kale waxaana loo balansan yahay in uu helayo dalacsiin uga timaaday boqorada Ingiriiska waana codsi uu horay u dirsaday markana laga soo aqbalay waxaana halkaas isugu kulmay dalacsiintiisa iyo dilka Locksley dilkaasina wuxuu u arkayay xalka guushiisa haddaba Huntington wuxuu shariifka barayaa labadiisa wiil oo kala ah Aaron iyo Alibow isla markaasina gabadhiisa waxay akhrinaysaa warqadda dalacsiinta ugu dambeyntiina halkaas ayuu shariifka ugu hambaliyay dhanka kalena Barsila iyo Marian Sigara ayay u soo baxeen sheeko gaaban kadib Barsila waxay arkaysaa Marian oo wajigeeda dhaawac kaga yaal waxayna u sheegaysaa in aabaheeda uu garaacay waxayna leedahay waxaan ku soo daahay aroos dhaqameed ka dhacayay keenta sheekada markay intaas maraysa waxaa soo galay Captain LeForce oo ah kabtanka ciidamada Normaanka sidoo kalena waa Barsila saaxiibkeeda laakiin Barsila way u baaqaysaa si uu iskaga laabto Marianna markan waxay ogaatay isaga iyo Barsila in ay xiriir leeyihiin intaas kadib Marian waxay leedahay arooskaasi wuxuu ahaa aroos aan waqti qurux badan ku soo qaatay waxaana ii kixiyay wiilku uu dhalay Locksley Barsila oo ay lama filaan ku noqotay ayaa leh ma ogtahay in shalay aabihiisa la daldalay dambeyntiina Marian waxay ku jawaabaysaa waan ogahay midaas aragti ahaan habeenkaas ayaa ugu dambeysay waqti xaadirkaana xaaladiisa kama warhayo dhanka kalena Rob adeerkiisa iyo wiilku dhalayba waxay joogaan keynta Rob adeerkiisa ayaa leh waxaan rabay in walaalkaaga aad u raacdo magaalada London laakiin hooyadaada ayaa iga diiday halkaasina waa meel lagu noolaan karo sidoo kalena waxaad ka heli kartaa gabdho wanaagsan laakiin sheekada markay intaas maraysa Rob kaasankiisa isagoo kaftamayo wuxuu leeyahay aaba ma ogid miyaa Rob inuu halkan jacayl ku samaystay waana Huntington gabadhiisa Marian ugu dambeyntiina Rob markuu hadalladaas maqlay wuu iskaga istaagay markay xaafadda ku soo laabtaanna waxaa lagu wargeliyay in Rob hooyadiisa ay sugaysay saakay oo dhan isla markaasina waxay bilowday in ay la dardaaranto waana dardaarankii ugu dambeeyay uu ka helay mid kamid ah labadiisa waalid waxayna leedahay wiilkaygiiyo waa in aad ogaataa in shariifka aad dili karto kun jeer laakiin waxaad u ogolaanaysaa in ugu dambeyntii ay burburiyaan noloshaada waana in aad doorataa jacayl iyo sabar hana u ogolaanin in Normaanka ay go'aamiyaan noloshaada ugu dambeyntiina wuxuu leeyahay waan ogahay in aan ahay wiil reer Saxon waligeyna aan ahaanayo sida hooyaday iyo aabahay oo kale kadibna Gamewell wuxuu leeyahay waa in ay nasataa hooyada wuxuuna ka soo wadayaa qolka laakiin daqiiqado yar kadib Rob hooyadiisa ayaa ugu dambeyn geeriyootay waana daqiiqad kale oo aad u murugo badan adeerkiisa Gamewell ayaana halkaasi ku sabarsiinayo iyadoo laga joogo ku dhawaad 15 maalmood geerida Rob hooyadiisa Marian waxay si lama filaan ah ku timaaday guriga uu degan yahay Rob laakiin Rob marka hore wuxuu ku jiray gudaha isla markii uu soo baxan wuxuu arkayaa Marian oo taagan banaanka laakiin markuu arkay wuu ka soo dhaqaaqay ayada waxayna markaan Marian bilaabaysaa inay la hadasho isaga waxayna leedahay waan maqlay in aabahaaga la daldalay ilaa iyo haddana ma aqaan sababta Robna markaan wuxuu leeyahay marka hore waxaa loo xiray in uu qiyaameeyay keenta kadibna inuu xabsiga ku dhex dilay askari Normaan ah inkastoo Marian ayna aaminsaneen in Locksley falalkaasi oo kale uu sameeyay isla mar ahaantaasina waxay weydiinaysaa halka ay joogto hooyadiisa wuxuuna u sheegayaa in ayadana sidoo kale uu waayay ugu dambeyntiina Marian waxay ku dhiirigelinaysaa in dhacdadan oo kale ay qof kasta ku dhici karto isagana ay tahay in uu sabar ka badiyo waxayna sidoo kale u sheegaysaa in garabkiisa ay taagan tahay subaxda kalena waxaan aragnaa Huntington iyo caruurtiisa oo wada fadhiya miiska quraacda laakiin mid kamid ah wiilashiisa magaciisa yahay Alibow wuxuu weydiinayaa sababta loo daldalay Locksley Huntingtonna si fudud ayuu ugu jawaabayaa wuxuuna leeyahay wuxuu dilay askari Normaan laakiin markana wuxuu leeyahay aaba ma adiga ku lug lahaa soo xiridda Locksley laakiin Huntington jawaabtiisa waxay noqonaysaa su'aal uu gabadhiisa ku weydiinayo oo hadda ma waxaad go'aansatay in walaalahaaga aad igu soo jeediso Huntington oo aad ugu careysan su'aasha uu weydiiyay wiilkiisa wuxuu isagoo xanaaqsan gabadhiisa Marian ku leeyahay waan ogahay in wiilasheeda fikradahaada ay wataan adigana hooyadaada ay kaaga horeysay ugu dambeyntiina wuu iskaga tagay miiska saaxiibayaal Marian hooyadeedna waxay geeriyootay iyadoo aad u yar dhanka kalena waxaa la gaaray waqtigii uu wiil u baxayay magaalada London hooyadiisana waxay siinaysaa cunto uu sahay ahaan u qaatay ilaa uu ka tagayo London aabihiisana wuxuu soo aaday dhanka Rob wuxuuna rabaa in uu ku qalqaaliyo in wiilkiisa ay iswada raacaan laakiin Rob ugu dambeyn waa uu diiday wiilna sidaas ayuu kaligiisa ku baxay intaas kadib isla markiiba Rob waxa uu ku soo laabtay qolkiisa wuxuuna isla markiiba soo qaatay boorso ay ugu jirto lacag yar uu aruursanayay si toos ah ayuuna u soo aaday qasriga Huntington daawadayay sharafta la sheekada markaan way waalanaysaa Marian walaalkeedana waxa uu tusinayaa in Rob uu imaaday guriga isla markii ay aragtayna dhankiisa ayay u soo dhaqaaqday ayadoo ka cabsanaysan in halkan lagu dhibaateeyo waxayna su'aalaysaa waxa uu ka soo doonay halkan isla markaasina wuxuu leeyahay waxaan rabay in aan ku arko adiga Marianna waxay u soo kaxaynaysaa meel gaar ah si wada hadalkooda aanan loo maqlin isla markaasina Rob hadal oo dhan waxa
uu ku bilaabay bal fiiri halkan waxaan hayaa lacag waxaan halkan u imaaday in aan ku kaxaysto adiga haddaba mi raacaysaa Maryan oo lama filaan ay ku noqotay go'aanka adag uu gaaray Rob waxayna u sheegaysaa in aysan awoodin midaas wuxuuna leeyahay waxaad igu dhahday in garabkayga aad ahaanayso oo mana maleynayo in ay jirto waqti aan ugu baahi badanahay garabkaaga waqti xaadirkan ayadana waxay leedahay waan rabaa in aan ku raaco laakiin waxaan ka baqayaa in aabahay uu nafta ku dhaafiyo Rob oo markan go'aankiisa ku adkeysanayo wuxuu leeyahay aniga aqaan qayb walba oo keynta ah lagamana yaabo in cidna ayna aragto wuxuuna sidoo kale u sheegayaa in uu waayo qof kasta uu jeclaa marka laga reebo ayada ugu dambeyntiina Maryan markay intaas maqashay waxay aqbashay in ay raacdo isaga laakiin markan isla markiiba waxa albaabka soo istaagay Huntington wuxuuna markiiba Rob weydiinayaa waxa uu ka qabanayo halkan Robna markan wuxuu si geesinimo leh u hor istaagay gabadha uu jeclaa wuxuuna leeyahay waxaan rabaa in aan la noolaado gabadhaada laakiin Huntington markuu intaas maqlo wuxuu gacan yariisa Bernard ku amrayaa in Maryan uu u kaxeeyo qolkeeda daba sheekada markan waxa iskugu soo haray laba qofood oo aad qiyaasi kartaan waxa ka dhaxeeyo Robna waxa uu la soo baxay boorsadiisa lacagta wuxuuna Huntington u bandhigayaa laba midkood in uu doorto tan koowaadna wuxuu leeyahay tani waa lacag ku filan aniga iyo gabadhaada in aan nolol cusub ku bilaawno tan labaadna waxay tahay in uu meher ahaan u qaataa lacagta laakiin Huntington ma dooranin labadaba wuxuuna ka qaatay boorsada Robna wuxuu moodaa in meher ahaan looga qaatay wuxuuna ku leeyahay noloshiina go'aankeeda anigaaba goor hore gaaray isla markaasina wuxuu bilaabay inuu garaaco laakiin Robna wuu iska difaacay inkastoo markan Rob ay ku dhacday fiir sababtay in uu soo istaagi waayo waxaana Huntington uu la soo baxay mindi uu rabay in uu qoorta kaga gooyo laakiin Bernard ayaa si lama filaan ah ku soo laabtay wuxuuna leeyahay sameyn mudane uma baahnid in gacmaha aad iskaga wasaqayso laakiin sheekada markay intaas maraysa Rob waxa uu helay Janice yar xusul ayuuna gadaal ugu dhiibay Bernard oo albaabka taagnaana wuu qaban waayay Rob oo markan nafsadiisa la baxsanayo iyo Huntington oo soo qaatay falaar balse nasiib wanaag waxay kaga dhacday garabka laakiin intaas ugu maharin wuxuu soo qaatay mid kale laakiin gabadhiisa ayaa soo carartay ugu dambeynna joojisay Huntington markan wuxuu ku qeylinayaa gabadhiisa wuxuuna leeyahay ma waxaad guriga ii keenaysaa ee ka soo jeeda reer Sax mar hadday sidaas tahayna waa in aad isku diyaarisaa safar degdeg ah subaxda kalena waxaan aragnaa Maryan oo loo diyaarinayo dharkeedii safarka waana waqti ay ku jirto murugo iyo xaalad aysan waxba ka bedeli karin dhanka kalena Robna waxa uu dareemayaa xanuunka kalinimada ugu dambeyntiina waxaa la gaaray waqtigeedii safarka waxayna macsalaameynaysaa walaalaheeda waqti aabaheeda uu ka soo fiirinayo daaqada sidaas ayayna ku dhaqaaqday socdaal yar kadibna markan waxa ay soo gaareen halka uu Rob degan yahay driverka ayayna u sheegaysaa in uu joojiyo faraska Bernard ayayna ka codsanaysaa in ay la kulantay isaga baryo kadibna ugu dambeyn wuu ka aqbalay isla markaasina waxay arkaysaa Rob oo taagan banaanka waqti uu Rob da'ayo waxayna u sheegaysaa inay halkan u timaaday si ay u macsalaameysay isaga Robna markan waxay dhagihiisa maqleen wax kale oo lama filaan ah wuxuuna markan moodaa in ayada ay go'aansatay ka tagista halkan ilaa marka dambe ay fahansiisay in aabaheeda uu ku khasbay safarka laakiin markan waxay u sheegaysaa xaqiiqo kale oo qaraar taasoo ah in aabaheeda uu ka dambeeyay soo xirista aabihiisa laakiin Rob ayaa isagoo yaaban leh maxaad igu sheegtay midaas waxayna ku leedahay maxaa yeelay waa necbahay aabahay sidoo kalena waa necbahay in aan ka soo jeedo dadka reer Norman laakiin ma ahan wax aan bedeli karo waxa kaliya aan awoodayna waa in aan ka dhigay riyada mustaqbalkayga ugu dambeyntiina halkaas ayay ku macsalaameysay Robna markan waa uu la wajibaarmay xanuunkiisa ilaa uu gaaray heer uu jabiyay qansadiisa markan aan aadna dhanka boqortooyada Normaanka shariifkan waxa uu sikadiisa ugu tagayaa Captain Lefos oo jiifa qolkiisa waxaana loo wadaa war uunan filaynin oo ah in laba maalmood uu waardiye ka ahaada keynta waana war laga qarinayo Huntington maadaama isaga mas'uul looga dhigay arrimaha keynta haddii shaqadiisa si guul uu soo dhameystana in la siinayo awaalmarin Captain Lefos heshiiskaas aad ayuu ugu farxay dhanka kalena Rob wuxuu isku diyaarinayaa ugaarsi eedadiisana shaarkiisa ayuu u soo nadiifisay halkuu adeerkiisa hadiyad aan u siiyay qaansi iyo falaaro cusub dabcanna wuu ka helay hadiyada isla markaasina wuxuu soo aaday ugaarsigiisa laakiin markan wuxuu meel fog ka arkayaa Captain Lefos iyo saaxiibadiisa oo fadhiya geed hoostiisa waana waqti ay cabayaan cabitaano maandooriye ah laakiin Rob wuxuu isku dayayaa in si caadi ah uu agmaro ayaka laakiin markan waxay bilaabayaan in ay la kaftamaan mid kamidna wuxuu leeyahay wiilyahow yar qaansada ragga loogu talgalay iskaga soo dhiib Robna markan wuxuu bixiyay jawaabtii laga sugayay oo wuxuu leeyahay qaansadan waxay garabka ugu jirtaa nin ishuba sheekada marka intaas mareysana Captain Lefos wuxuu leeyahay daba tartan nala gal 10 pounds ayaan ku siinayaa haddii aad toogato bartilmaameedkayga laakiin haddii aad haleeli wayso waa inaan kaa qaataa qalabka oo dhan Robna waa mid 100% ishuba wuxuuna leeyahay dooro bartilmaameedkaaga Captain Lefos asxaabtiisana way soo wada istaageen si ay u daawadaan gamekan adag ugu dambeyntiina Captain Lefos wuxuu bartilmaameedsaday targetkiisa Robna markan wuxuu diyaarsaday leafkiisa isla markii uu turayna way haleeshay deerada taasina waxay lama filaan ku noqotay Lefos iyo saaxiibadiisa waxaana markan laga sugayaa in ay bixiyaan lacag laakiin Rob markan balanta ayaa looga baxay wuxuuna leeyahay aniga ma rabin in aad disho boqorka deerada sidaas darteed lacag ma lihid waa inaad halkan iskaga tagto Robna markan wuxuu u dagaalamayaa si uu u helo lacagtiisa wuxuuna Lefos ku leeyahay adiga ahaa qofka haweenkaasi soo xiray aabahay Captain Lefosna wuxuu saaxiibkiisa ka qaatay falaarta isagoo leh haddii sidaas tahay waa inaad adigana aabahaaga raacdaa isla markaasina Rob wuxuu bilaabay in uu ka cararo laakiin nasiib wanaag uu ka badbaaday falaarta markanna waa markii Livianka uu ka falcelinayay isku daygii la rabay in nafta lagu dhaafiyo falaar uu soo tuurayna waxay xabadka ka gashay Captain Lefos inkastoo Rob markan ay lama filaan ku noqotay in uu arkayo qof uu gacantiisa ku dilay isla markaasina Lefos saaxiibadiis waxay bilaabeen in ay falaaro ku soo tuuraan Rob isagana sidaas ayuu ku cararay daawadayay sharafta ee taxanaha Robin Hood iyo qaybtiisa labaad halkaas ayay inoogu dhamaatay